faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dhacdo argagax leh oo shalay ka dhacday degmada Waaberi ee gobolka Banaadir kadib markii gabar loo geystay fal kufsi ah dabadeedna laga soo tuuray dabaq dheer oo ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Inkastoo wali aysan laamaha ammaanka dowladda Soomaaliya aysan faahfaahin buuxda ka bixin ayaa haddana ehelada gabadha oo lagu magacaabo Xamdi Maxamed Faarax oo ka tirsaneyd ardaydii sanadkan ka qalin jebisay dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Muqdisho ayaana xaqiijiyay saaka ayaa waxaa Muqdisho lagu aasay Xamdi waxaana ehelada Xamdi ay dalbadeen in gabadhoodu ay hesho cadaalad. Gacal Xuseen oo ah gabadha abtigeed ayaa sheegay in xarunta CID ay u xaqiijisay in gabadhoodu la kufsaday dabadeedna laga soo tuuray dabaq dheer oo ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir. Xamdi Maxamed Faarax ayaa deganeed degmada Daynile ee gobolka Banaadir gaar ahaan xaafadda Radeerka. Mana aha markii ugu horeysay fal ceenkaaniya oo ka dhaco magaalada Muqdisho ama guud ahaan Soomaaliya, waxaana sanadihii dambe soo korortay in haweenka Soomaaliyeed in la faraxumeeyo dabadeedna la dilo. Qaar ka mid ah dadkii hore gabdhahoodu loo faraxumeeyay ayaa xilliyada qaarkood waxay isticmaalayeen maraha bulshada iyo FM-yada gudaha dalka Soomaaliya ayagoona sheegayay in gabdhahoodu aysan helin cadaalad halka kuwa kalena la muujiyayba in cadaalad ay heleen qaarkood loo xukumay qaarka kalena xabsi loo taxaabay. Dhinaca kale taliyaha booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in howlgal ay sameeyeen ay ku soo qabteen 4 ruux oo la xiriirinayo in ay ku lug leeyihiin kufsigii iyo dilkii loo geystay Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar ardayda isla markaana sanadkan ka qalin jebisay dugsiyada sare ee ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana ay sheegeen in baaritaankaasi markuu soo dhamaado ay la hadli doonaan warbaahinta.